khasbaan isku dayeen gabadha waa carartay marka gabadha waa carartay qabiil meesha dego la yiraahdo reegido way dhax gashay gabadhii nimankii gabadhii haa way yireen way raadiyeen ma yiri marka ana idin raaca gabadha iska dhaafa ana idin raaca yaradii wixiina waa idin soo siina in keena sidii waxa dhacday wiilkii waa iyo xidadkiisii waa soo wada raaceen markii adii halkan iyo masaafo ahaan adii xaar camal ay sii socdaan ayaa waxa dhacday in wiilkii la xirxiro lagu iyo gacmaha laga xirxir ceela lagu toornay wiilkii arrinkaas markay oo dhacay deegaanka dhexdiisa arrinkaas markuu dhacay ayaa waxa dhacday CDO in wiilkii la goobay la raadi qalaaf la aad inta la aado waxa la yiri wiilkaas waxa soo qaxaystay nimankaas hebel oo gabadha dhalay wixii dadkaas soo qaxaystay la yiri marka ku daalin ayaga la weydiyo meesha qoriyo la isku soo baxay marka baajamaal biliseedka iyo baajamaalkan jiriirta waa isku baajamaalkii laakiin jiriirta meesha awood badan baajamaal biliseedka waa wax yar oo macnaha awood iyo cudud kuma dhanno waa laga badan yahay waana laga badan yahay macnaha ayaga 3 tuulay deegan kuban waxay deegan 13 tuulay ay deegan nimanka naftooda u yaabeen waxay yireen wixii way dhaceen walaalayaalow magaan bixinayna idanka mag ahaan geela kala qaadatiin 100 halaad geela kala qaadisama annaga marka deegaanka annaga waxa waa deegaankayna annaga waxaan kala qaadanaa 100 saacad oo lo hadii markaas qofku salaahayna hadduu salaaheen may waa dadka waa xoolilay meesha dadka joog Allah u badan yihiin jireer iyo jilaac lo waxaan keen lama dhaqto meesha deegaanka Soomaalida intaas annaga caan ku nahay markii geelkan dad dhaqta waa jiraano laakiin dadka geelka waxa u badan dadkaas ogaadeenkaas ayaa u badan laakiin annaga waxaan nahay lo'ley iyo arliyan dadka waa reebaadiye adii qoladii waxay go'aan lagu gaaray markii la wada hadlay oo beerihii kala soo dhax galeen waxa la yiri 100kii halaad 100kii neef oo lada ahayo 100kii wiilkii 100kiisi baan bixinaynaa wixii way dhaceen raali Allah dad walaalana marka CDO waxa dhacday in 100kii la dhiibay gabadhii wili khalaafay gabadhii joogta 100kii markii la dhiibay oo sidii lagu kala tagay ayaa waxa dhacday gabadhii in la yiraa in wiilkii macna xigsiis ahaan loo siiyo dumaal in wiilkii uu dumaalo ayay noqotay gabadhii markii ay maqlaan qoladan gabadhiini waxa la dumaal rabaa wiilkii ceelka lagu riday gabadhii ay u imaadeen waxay yireen waa la heshii wixii dhacay way dhaceen hooyina keen aan baxna khalaaf gabadhii ugu imaadeen mar labaad gabadhii ay soo qaxayeen gabadhii markay soo qaxayeen ayaa ceelkii markii la joogo ninkii lagu riday baa la yiri ord biino soo dhaami gabadhii ceelka saas markay gabadha ugu foorsato waxa arkay ceelka uraya aragtay gabadhii markaas ay tir war ceelkan waa uraya ad leedin biinaag soo dhaami markaas la yiri ceelkan waxaan ku ridnaa la yiri ninkii ad la soo carartay kula soo fakaday ma fahanti adna maanta halkan ku dhimanaysa hadda dad keentay inaa mid kale ku laabatid markii CDO gabadhii waa la xirxiri meesha lagu dilay oo ku dhacday markii niyo CDO qisadaas ayaa macna igu xanuun badneed qisadaas maxay ka dhacday dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan kililka shanaad dadka dago waliba hela goranyo ayaa halkaas macna qisadaas ka dhacday marka dadkaas waa dad walaale ah ani waxaan u soo jeedin lahay maadaama baajamaal wada tihiin oo hal atiin jilaaci jireer is kala bixinina ilaaha macna mid idin ka dhigay dal iyo waxa idin ka dhaxeeya dhul iyo dheef iyo wax kasta waa idin ka dhaxeeyaan ani waxaan u soo jeedin lahaa waxyaas waa wax fool xun oo wax aan wanaagsaneyn waa wax dadka kala sii fogeynayo marka inay ka waantoobaan ay waxaasna macna ay iska daayaan marka CDO-nada waxa isleedahay waxa u jeedinaysa dadkan deegaanka Soomaalida ka soo jeedo aad baad u mahadsantahay Ibraahim Khallaafi runtii qiso aad u xanuun badan weeye marka waxaan ka turjumaysaa Soomaalidu meel kasta ay joogto inuu ka dhacay waxa loo yaqaan qabiiliga oo runtii ah dhibaatada ugu weyn ee Soomaaliya haysta maanta inay tahay qabiili heer ay marayso wiilkii gabadhii in si qasiid ka dhacday hadda sanadkii dhammaan 2018 ka dhacday Muqdisho marka runtii waa arrin aad u naxdin badan oo waxyaalaha ka mid tahay Soomaalida dhibka haystay ka mid tahay Ibraahim aad u mahadsan tahay qisada inta ku koobanta filayaa ها قصيدة الكاني كنت سيء كومنت
aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa Ibraahim Khallaafe oo ah soo diyaariyaha arinta qisada ka dhacday dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan kilinka shanaad qisadaas oo saad daawaneyseen uu Ibraahim ugu sharaxayay qiso ku dhacday wiil iyo gabar barnaamijkeenana wuu sii socon doonaa qisooyin badan ayuu Ibraahim nagu talagalay intaas ayaan ku soo koobayaa saaxiibayaal barnaamijkii gaarka ahaa taxanaha aan ugu talagalnay barnaamijka halkan waxaan kala socodsiinahay Maxamed Cabdullaahi Siidi dhanka kaamirada iyo sidoo kale farsamada waxaa isku qaatay Maxamed Ordaaye iyo sidoo kale waliba Liibaan barnaamijkan daawadayaal mid la mid ah sida nabadgelyo waxaan sidoo kale mahad celinaynaa hoteelka Embassy oo kamid ah hoteelada ku yaala magaalada Gaalkacyo ahna hotel runtii aad u muhiimsan isla markaana ay ku soo degaan dadka markaasi Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa iyo sidoo kale gudihiisaba markaasi habba adeeg uga baahdaan ka heli kara xalayr Liibaan mid kale xalayr CDO qalbi furan ayaa la galaa irid furan lama galo aad iyo aad waxay hotel Ambas sida noo soo dhaweeyay wallahi wabillahi in lacagna laga qaadin barnaamijkan halkan ku qabsanay si xornimo qalbi wanaagsan farxadana loogu soo dhaweeyay marka hotelkan waxaan leeyahay waa hotelka wax kala leh ma la kanaan dhigi karaabo qof walba lagu soo dhaweynaya saaxiibayaal halabuur midiya ayaa nagala socoteen subscribe saara si aad ku heshaan muuqaalada degdega ah sidoo kale like-ta share-kana ma santeen dhinaciina